waafaqsan yahay hadalkoodu isku meel buuna u socdaa, laakiin Maraykan laftigiisaad moodaa hadalkiisu inuusan isku meel u soconin. Sidaan horey halkan dhowr jeer uga sheegnay, waxaad moodaa Iiraaniyiintu awood cusub oo inay u soo baxday oo ay maaragtay dee awalba fahansanaayeen, laakiin hadda inay suurtagal tahay ay tijaabiyeen. Markay tijaabiyeen ay arkeen inuu yahay wax lagu gorgortami karo oo uu yahay gacanka Hormuus. intii wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan, wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Cabbaas Araaji ayaa bartiisa Twitterka 10 taariikh lagu tilmaamay ugu dhigay madaxweyne Donald Trump maanta oo ay ka soo wareegatay 400 sano guuradii markii dowladda dalka Iiraan ay iska kicisay gumaystihii Boortaqiiska. qodobada barnaamijkeena ayay caawa ka mid tahay. afayeenka baarlamaanka dowladda dalka Iiraan Maxamed Qalibaaf ayaa dhankiisa sheegay in ay markaas isbeddel cusub oo ka curtay bariga dhexe dowladda dalka Maraykankana dib dambe aan loogaga baahan doonin aysan ka talin doonin bariga dhexe dowladda isla mar ahaantaasna nidaam cusub uu bilaaban doono oo markaa ka hana qaada Persian Gulfka. muxuu ula jeedaa arrintaas? Congresswoman Ilhan Omar ayaa ka hadashay podcast caano oo Maraykanka oo hadalhayn fara badan dhaliyay iyo Iiraan waxyaalaha ay u aragto biyo kaba dhibcaanka iyo kan Maraykanka ayaanu isbarbar dhigi doonaa xilli uu ku wajahan yahay Donald Trump bishaan May ee berrito kowda haddii la yiraahdo dalka Shiinaha bisha dhexdeeda uu ku wajahan yahay dalka Shiinaha oo markaa maraakiibtiisii uu xanibay Maraykanku. taariikhdu daawadayaal waa 30 bisha afraad sanadka 2026. dayib Sheekh Axmed ayaa barnaamijkan mar kale igu martiyay oo qodobadan aad iyo aad ula socday ahna aqoonyahan Soomaaliyeed qoraan dalka Maraykanka jooga. dayib adiga iyo daawadayaashaba habeen wanaagsan soo dhawow. habeen wanaagsan Cabdi Xaafid, waa ku mahadsan tahay martiqaadkaaga mar labaad. diridda lacagtu waa inay noqotaa mid sahlan oo degdega oo la isku halayn karo. ku soo dhawaada Nation Remedy, abka cusub ee lacag dirista oo si toos ah ugu xidhma EVC Plus, SAF, Sahal iyo Mobile Money. isticmaalka abku wuu fudud yahay. soo deji abka. waxaad sidoo kale ku diri karaysaa adigoo adeegsanaya Apple Pay ama Google Pay. ku dhufo Pay Money. Nation Remedy, degdegsiiyo iyo ammaano oo loo sameeyay bulshadeena caalamiga. Nation Remedy, dirista lacagta oo la fududeeyay. isku soo wanaagsan daawadayaal. dayib haddii aynu ku bilowno warka afayeenka baarlamaanka dowladda dalka Iiraan aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa xilli Trump xaaladdu ay ku adag tahay oo aynu dib uga imaan doono. muxuu hadalkiisu daaraya? waa mahadsantahay walaalkay mar labaad. afayeenka baarlamaanka hadalkiisu wuxuu daaran yahay. waxaad moodaa Maraykanku dagaalka markuu qaaday wadamadan carabta oo la yiraahdo GCC-ga inta badan baysas buu ku lahaa ama kulligoodba. waxaad moodaa marka hadda in ay waxyaalaha ay Iiraaniyiintu u suurtagalay ay yihiin ama inay question geliyaan ama ay gorgortankaba ay ka mid noqoto Maraykanku inuu wadamadan GCC-ga uu ka tago. waxyaalaha laga wada hadlayayna ay tahay oo Iiraaniyiintu laftigoodu ay dalbanayeen. labada arrimood bayna arrintaasu tusinaysaa. kow, sodomeeyadii sano ugu dambeeyey lahaa wadamadan GCC-ga waxaan idinka difaacaynaa mashaakilka iyo dhibaha. aad moodina asagu inuu mushkilo iyo dhib u horseeday. iyo midda kale oo ah Iiraan oo ogaatay inay mushkilo iyo dhib u geysan karto Maraykanka iyo baysaskiisa. marka waxyaalahaas baa maaragtay motivate garaynaya ama hadalkiisa soo kiciyey. waayahay haddii aynu dhinaca kala daybo eegno waxaynu ognahay sidoo kale dowladda dalka Iiraan Donald Trump wuxuu ku celceliyey madax iyo mijo malahan cid u talisa lama yaqaano, waa isku dhex yaacsan yihiin, qalalaasa ayaa ka jira ayuu yiri. laakiin markaad eegtay siday u hadlayaan, qoraalada publiga ay soo dhigayaan, warbaahintoodu waxa ay tabinayso iyo tan caalamkuba inay isku mid yihiin. tusaale waa kan Mujtamac Ali Khamenei laftigiisu ka hadlay arrinta Hormuus. hadalkiisa maxaa lagu macneeyey? muxuuse daaraya?
waafaqsan yahay hadalkoodu isku meel buuna u socdaa laakiin Maraykan laftigiisaad moodaa hadalkiisu inuusan isku meel u soconin sidaan horey halkan dhowr jeer uga sheegnay waxaad moodaa Iiraaniyiintu awood cusub oo inay u soo baxday oo ay maaragtay awalba fahansanaayeen laakiin hadda inay suurtagal tahay ay tijaabiyeen markay tijaabiyeen ay arkeen inuu yahay wax lagu gorgortami karo oo uu yahay gacanka Hormuus oo 20% wax ka badan shidaalka adduunka uu maro 28 ilaa 30 gaaska dabiiciga uu maro waxyaalaha fertilizer-ka 20 ay maraan ganacsiga wadamadan khaliijka uu socdo wax ka badan 70% ay maraan internetka xargaha internetka oo badda hoosteeda mara 90% ay maraan oo ku socda wadamadan GCC-da la yiraahdo marka waxaad moodaa Iiraaniyiintu ayagu waa hadalkoodu waa wada socdaa isku meel buuna u jeedaa ujeedadooduna way fahansan yihiin Iiraan wuxuu isleeyahay maadaama uu maaragtay dadka Maraykanka uu ku dhaliileen sida uu hawshan u gutay iyo sida uu dhexgalay iyo sida maaragtay hadda wax ku socdaan dadku Maraykanku ma weelinaya wuxuu leeyahay Iiraan ma leh hoggaan maadaama aan hoggaankii laynay marka waxaad moodaa in ay faction kala duwan yihiin oo iyaga is haystaan laakiin dadka caqliga leh oo wax kala garanaya way u jeedaan waxaan inuu asagu wax u abuuranaya yihiin wax shaqaynayana aysan ahayn marka Mustafa Cali Qabanee iyo afhayeenka baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha iyo kulligood way ka dhawaajiyeen inay rabaan shuruudahooda ay ka mid tahay wadamadan dariska iyagu ay leeyihiin Persian Gulf ku yaala inay Maraykanku ka guuraan mar haddaysa dee waxba u qabanaynaa Persian Gulfka laftigooda culays iyo shiday ku hayaan hadda waxdan iyo manaafacaadaha ugu jira ma jiraan marka waxyaalahaasaad moodaa inay karkarayaan sidana markuu dagaal dhaco waxbaa isbedelaa qolana waa guulaysataa qolana waa guuldaraysataa Maraykanku waxaad moodaa guuldaradii ku dhacday inuu aqbali yahay oo madaxa dhulla dhac uu ku jiro Trumpna waxaan u malaynayaa qofkii ugu liitay oo maarayn lahaa inuu yahay mashaakilku markuu dhaco qofka maaragtay madaxdaahu waa inuu go'aan qaraar qaataa laakiin waxaad moodaa hadda ninka halkan joogo ee Donald Trump inuu yahay ninaan go'aan qaadan karan oo maaragtay isku dhex yaacsan waayahay waxyaalaha ilaa iyo haatan aad loo hadalhayo inay dowladda dalka Iiraan ay ku guulaysatay sida la sheegay waxaa ka mid ah in la leeyahay dowladdiina weli waa is haysataa inkastoo dhibaato badan loo geystay haddana Donald Trump cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo xad dhaaf ayay ku haysaa tusaale waxaynu la soconaa markii ugu horreysay tan iyo intuu dagaalku bilowday 62 cisho ka hor Israa'iil iyo Maraykanku ay weerar ku soo qaadeen Iiraan shidaalkii Brent crude oilkii $120 in la kala iibsanayo Maraykankaa joogtaa xaaladda iyo maciishada meesha maraysa shidaalka waa la socotaa nin aad wax u akhriyaa tahay arrintaas culays siyaasadeed oo ay mid dhaqaalo intee la eg ayay Donald Trump ku haysaa mid weyn bay ku haysaa walaalle waa ma ogtahay economigu siisaba ma ogtahay nin Clinton campaignkiisi ka shaqayn jiray oo James la yiraahdo wuxuu dhihi jiray ma ogtahay maxaan samaynaa if the economic is stupid dhaqaaluhu siisaba ma ogtahay waxyaalaha wax drive garaya ama horay u kaxeeya ama gadaal u kaxeeya ka mid tahay guuldarro iyo guul labadaba shalayto waxaa shir jaraa'id qabtay sidaa la socota Cabdixaafid oo ninka Fed governorka ka ah ama oo Jerome Powell la yiraahdo wuxuu sheegay in dhaqaalaha Maraykanku uu halis ku sugan yahay sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay Maraykanku inay dadka siyaasiyiinta si fiican u fakaraan waayo mashaakilku waa soo badanaya cuntada waa qaaliyoobaysaa shidaalku waa qaali wax kasta oo dee energy ku xiran energy-naalan waddankan lama noolaan karo sidaan horeyna u sheegnay Maraykanku wuxuu ka mid yahay wadamada shidaalka soo saaro laakiin maalintii wuxuu soo gala oo soo saaraa 7,000 oo barmiil wuxuu u baahan yahay 9,000 oo barmiil 2,000 oo barmiil meel uu ka keeno u baahan yahay waxyiraahdo milyan way kun maaha milyan 7 milyan oo barmiil marka 9 milyan oo barmiil uu u baahan yahay arrintaas marka kabid bay u baahan tahay ogowna sidaba shidaalku waa international market weeye ma ogtahay standard buu leeyahay adduunyadoo dhan fursada shidaalka inta ay ka joogto Maraykan ama Minnesota ama waxa weeyaan Qandahar ama Gaalkacyo waa isku mid weeye
circumstances iyo meelaha taalaba kala duwan laakiin sixirku waa adduunka oo dhan waa wada socdaa marka cadaadis weyn baa dhinaca ka saaran dhaqaalaha waxaad kaloo og tahay waqtigan waa waqti doorashadana waxa weeyaan qof walba madaxweynaha markaa jooga ama hoggaanka haya aad baa loo dhaliilayaa haddii uu ka soo bixi waayo waxyaalihii loo igmadayna waxay u badan tahay inay dadka maraykanku ku ciqaabaan arrimahaas iyo maaragtay rabaa Trump inuu soo afjaro laakiin sheekadan sheeko soo afjarmaysa maaha sidoo kale dhinaca sharciga sidaynu horeyba u sheegnay 60 casho ayaa madaxweynuhu uu leeyahay inuusan baarlamaanka soo ogeysiin oo uu dagaal wadi karo 60 casho hadday dhaafto wixii dagaal u qaado waxa weeyaan waa sharci darro wuxuu u baahan yahay inuu baarlamaanka weydiisto fasaxaasna ma malaynayo hadda inuu u samaynay marka Trump waxaad moodaa meel oo khatar ah inuu taagan yahay oo ah maaragtay dagaalkii kuma guulaysan dagaalkii kama bixinin hadda blockade baan sameeyey buu leeyahay maanta haddii wax dhacaan oo dad Maraykan u dhintaan oo ciidamada ka mid ah responsibilitygiisa asagaa qaadaya marka waxaan u malaynayaa inuusan habeenadan seexanin waxaad dareemaysaa shalayta waxaan arkayaa isagoo meeshiisa social media soo dhigaya isagoo qori wato oo qaraxyo ka dambeeyaan oo leeyahay Mr Nice Guy waa dhammaaday I don't know weligiisba Mr Nice Guy ma ahayn laakiin waqtigaa Mr Nice Guy ka dhigay marka Trump arrimo badan baa haysto ciriiri fara badan buu ku jiraa ciriirigana isaga iskariyey waayahay ciriirigaas iyo culayska saaran waxaa moodaa habba inuu madaxda caalamka habba qof uu ku boodayo waddan habba xaganayo waxaynu aragnay isagoo ra-iisul wasaaraha boqortooyada ingiriiska haysta isagoo ra-iisul wasaaraha Canada ka laalaada xatan ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayuu weerar cad ku soo qaaday muxuu gaaran yahay weerarkiisan afka chancellorka dowladda dalka Ruushka Musk dhan ninka chancellorka Jarmalka wuxuu daaran yahay laba waxyaalood mid waa waddanka contributionka ugu badan siinayay maxaa la yiraahdaa Ukraine waana waddanka ugu dhaqaalaha badan xagga Yurub waana waddanka energy-ga ugu badan ka hela Ruushka marka maalin dhaweyd chancellorka Jarmalku uu hadlay wuxuu ku sheegay dagaalka Maraykanka iyo dhexmaraya iyo Israa'iil iyo Iran inay humiliate garaysay ereygaas u adeegsaday moogtay way humiliate garaysay yani way bahdishaa Soomaalihan markaynu niraahno arrintaasu marka iskama lahayna ninkan nin waqti dheer siyaasadda ku jiray oo sida ku shaqaynayaan garanayo Trump oo kale aan ahayn marka laba waxyaalood labadaba way tahay baa leeyahay kow wuxuu rabaa Trump iyo dadka la shaqeeya haddii guul darro ay ka timaado Ukraine oo Ruushku inta badan qabsado oo ku gacan sarreeyo inuu Yurubiyaanka eedeeyo oo yiraahdo idinkaa ka soo bixi waayey waajibaadkii iyo wixii laydiin igmaday midda kale wuxuu rabaa inuu ka fogaado oo ka insaxaabo Yurub oo ka tago oo yiraahdo sidaad la socotid wax ka badan 80 saldhig buu ku leeyahay Jarmalka Maraykanku meelaha Yurub saldhigyada ugu badan uu ku leeyahay weeye wuxuu ugu sheekayn jireen waxa weeyaan markii dagaalkii labaad oo uu dhammaaday waxaan ka difaacaynaa Ruushka iyo wixii la dhihi jiray Soviyetkii waxaadna moodaa hadda inaysan maartay reer Yurub iyagu isku tashanayaan oo haddeer ay dib u abaabulayaan inay iyagu noqdaan quwad ka madax bannaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan labadaba Maraykankii waxay ogaadeen wax la isku halayn karo inuusan ahayn sidoo kale waxaad la socotaa inuu qayb ka mid ah Yurub oo waddankan uu leeyahay boqortooyadan meesha la Greenland inuu Maraykanku uu yiri waa maaragtay waa qabsanaynaa xoog baa ku qaadanayna boqortooyada ay leedahay Netherland waxaa la Netherland Denmark sidoo kale waxaad moodaa inuu Maraykanku waxyaalo khuraafaada uu Yurub leeyahay Yurub waa la qabsanaya ayaan dhexdeeda waxaa jira warqad ay soo saareen oo national security-gooda strategy-gooda ay kaga hadlahayeen oo ay lahaayeen Yurub waxaa ku soo socda civilization erosion waxay dhaheen oo ah yani baaba xaggii ilbaxnimada baa ku soo socoto islaamka ku soo badanaya wuxuusan garanaynin oo uusan la soconin doqonnimadiisa dadkan soo qaxaya 99% waxay ka soo cararayaan dagaalo reer galbeedku ay abuureen oo iyagu ay ka shaqeeyeen ama ha noqdeen kuwa bariga dhexe ka socda ama ha noqdeen kuwa Afrika ka socda ama ha noqdeen kuwa Asia fog ka socda
mashaakilka in dadku soo qaxaan waxaa keenay siyaasad xumada reer galbeedka oo wadamada afrikana khayraadkoodii iyo waxyaalihii ay xaq u lahaayeen ay soo rarteen iyo resourcekoodii madax dictator ah oo burcado tuugaana ay madax uga dhigeen wadamada bariga dhexe qaybo ka midana dagaalo diin iyo siyaasad qarriban ku salaysan inay ka bilaabeen reer galbeedku oo ay ku abuureen kooxo ama xag jira ama dowlado boqortooyooyin oo kaliga talisya oo maraykanku iyo reer galbeedku ay maaragtay daba joogaan oo sida kuwan carabtu ay ka mid yihiin waxyaalahaas oo uu akhriyaya ee wuxuu eedaynayaa qofka maskiinka ah ee naftiisa la cararayo immigrant-iga ah oo meel ku noolaada raadinaya marka arrintan waxay daaran tahay oo hadda uu ka hadlaya uu leeyahay yurub waxaad ka ilaalisaan immigrant-iga waxaa abuuray siyaasad xumadoodee qofna inuu waddankiisa ka soo tago wax jacayla iyo wax magaciisa uu qabo ma jiro wax ka liito qofka biniaadanka ku dhaco qaxaana ma jiraan inaad qaxdid wax ka liitaa ma jiraan oo waddan shisheeyaa tagtid in qofka waddankiisa ku noolaado sharaf ka weyn oo qofka biniaadanka ah uu leeyahay ma jiro marka waxyaalahaasoo dhan taraame eegaya wuxuu eegayaa waxyaalahan qarriban oo asagu siyaasad ahaan ay ugu shaqayso waa gartay daawadayaal soo dhawaada waxaa noo soo socda wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka iiraan cabbaas caraaji oo cashar taariikhi u dhigay sida la sheegay Donald Trump maanta oo aynu qoraalkiisa idiin hayno Ilhaan Cumar hadalkeeda balse daybow intaas waxaan rabaa inaan ka hormariyo marka hore waxaynu ognahay Trump bishan May hadda curanaysa saacadaha soo socda haddii la yiraahdo in uu markaas bartamaheeda uu tegi doono dalka Shiinaha xilli badda u dhaxaysa Pakistan iyo Oman oo maraakiibtiisii dagaalka dhigay oo wax Iiraan u imaan kara iyo wax ka bixi kara aysan jirinin maraykankuna uu ka dambeeyay ismaaradaas madaxweynaha maraykanka iyo kulankoodu arrintan saameyn intee leeg ayay ku leedahay waa tusaale aad iyo aad u wanaagsan horta ballankan wuxuu ahaa ballan sii qorshaysnaa oo dib loo dhigay oo maray ku kulmeen South Korea ay ka wada hadleen inay mar labaad sarkaan arrintaanuna waxaad moodaa inay sii muujinayso xiriirka maraykanka iyo Shiinaha oo sii kala fogaanaya waxaadna moodaa sidoo kale inuu maraykanku hadda uu siyaasad ahaan Chinesku ay ka gacan sarreeyaan oo maaragtay hadda cidda loo tagayo wax la weydiinayo oo maaragtay ama Iiraan ha lagala hadlo ama ha lagala hadlo waxyaalahan Indo-Pacific ay isku hayeen oo Taiwan iyo South Korea iyo Japan iyo meelahan maaragtay Chinesku hadda ay aadka ugu fidayaan iyo maaragtay Australia iyo Hindiya iyo waa dhexdeeda squad qolo la yiraahdo ay sameeyeen maraykanka iyo ay sameeyeen marka waxaad moodaa Trump maadaama ballan hore ay lahaayeen inuu meesha tago waa ku qasban yahay waxayna u badan tahay cidda statesmanka ah oo wax kala garanaysa hadda inuu yahay aan looga maarmayna arrimahan inuu maaragtay wax ka tago waxay kaloo ku tusinaysaa waagii hore markii dadku isqabto waxay isla aadi jireen wadamada reer galbeedka oo halkaas arbitrka ahayd oo lagu kala bixi jiray adduunkii inuu isbedelay bay ku tusinaysaa oo hadda dhinaca bariga la aadahayo maraykanka laftigiisa uu xalal ka raadinayo inuu maaragtay China u tago bal arrintan uu kala hadlo waxay kaloo muuqataa dhaqaaluhu iyo waxyaalahan hadda uu rabo inuu kala hadlo ninka la yiraahdo Trump in maraykanku uu waagii hore isaga ahaan jiray cidda kaliya ama loo soo hijroodo ama maaragtay wax la weydiiyo adduunka hadda inuu Unipolar wax la yiraahdo awal jiray moogtahay oo hal system hadda inuu multiple uu abuurmayaad moodaa oo maaragtay uu abuurmayo maxaa la yiraahdaa quwado fara badan adduunkuna hadda uu choice leeyahay ciddii ka faa'iidaysanaysa aysan keliya ahayn reer galbeedka taladu aysan oolin iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo ilbaxnimadu ay hadda abuurmayso meel kale waxaadna moodaa Trump laftigiisu hadda inuu u aadayo inuu waxyaalo badan kala hadlo ay ka mid tahay maraykanku sidaan mar horeba halkaa ka sheegnay cabdixaafidow maraykanku waxyaalaha hadda adduunka u guurayo midna number 1 kama ah 10 waxyaalood adduunka ugu horeeya haddii ay noqoto clean energy-ga hadday noqoto electronic car-ka haddii ay noqoto solar panel-ka hadday noqoto windmill-ka baashaan wareegto dabka dhalisa haddii ay noqoto maaragtay semiconductor-ka waxyaalaha laga sameeyo chipta oo hadda 90% waxaa laga soo gataa waddanka la yiraahdo Taiwan sidoo kale waxaad moodaa maraykanka waxyaalihii uu lahaay oo dhan oo maaragtay bahalkiiga uu ahaa inay hoos u dhacayaan waxaan hadda shalayta arkaya maandhoweyd 95% gawaarida
electroniga ku shaqeysa waxaa iskale qolo la yiraahdo Chinese BYD la yiraahdo oo maxaa la BYD miya la asaasoo kala ah waagii hore ahayd company aad u yar laakiin hadda adduunyadoo dhan markaad madid hadda waa dhexdeeda oo dhigayaan Soomaadkii aan joogay Asia aan marayay wadamadaas Asiada oo South Korea iyo Singapore iyo Malaysia iyo Indonesia aan joogay aan arkayay inuu gawaaridii Mareykanku ay kasii baxayso suuqa sidoo kale waxay statistics waxaan arkayay la leeyahay haddii gawaarida adduunka oo dhan la combine garayo oo labada wadan oo adduunka gawaarida samaynta badan waxay ahayd Mareykan iyo Japan boqolkiiba 70 hadda waxaa dheer Chinese marka Chinese wuxuu noqday hadda suuq weyn oo industrial oo adduunyada oo dhan u baahan tahay sidoo kale waxaad la socotaa waxyaalahan laga sameeyo chip oo rare earth waxa la yiraahdo macdintan lagu qaaliga boqolkiiba 90 waxaa maamula China wax kasta oo maaragtay chip ku shaqeeyana ayada laga sameeyaa ama ha noqoto gantaal la tuuro ama ha noqoto satellite irka loo tuuro ama ha noqoto gaariga ama ha noqoto computerka ama ha noqoto telefoonada wax kasta oo electronic wuxuu u baahan yahay balka la rare earth boqolkiiba 90 waxaa maamula Chinese oo China iskale marka waxay ku tusinaysaa inuu maaragtay rabo inuu Trump halkaas aado oo bal arrintaas soo maaragtay kala hadlo shii waayahay laba qodob baa noo haray aan waxaan laakiin daqiiqad kale ku sii arrin kale oo muhiim ah laftigeedu jirta bal inaad dul istaagtid maxay daaran tahay warbixintan dowladda dalka Iran iyo waxay doonaysaa Reuters qoris arrintan waxay daaran tahay waxyaalaha ay rabto Iran markii ay wada hadalka la galaysay Mareykanka waxyaalahan ayay codsatay inay nuclearkeeda ay maaragtay si nabadgelyo u bacrimiso inay stateka Hormuz ay iyadu controlsho hadda ka bacdi wax laga weydiinayo in cunaqabatayntii Mareykanka soo rogay laga qaado in la siiyo magdhow iyo lamna in xabad joojin la dhexdhigo Israa'iil markan ku xadgudbo Mareykanku wuxuu doonayaa in la dhameeyo hubka nuclearka oo ay soo dhiibaan wax laala waxa meesha yaala sidii ku dhacday Ciraaq iyo wadanka la yiraahdo Libya oo kale ama xoog lagaga qaado in maaragtay ay joojiyaan maaragtay waxa la yiraahdo gacanka ay furaan si nabadgelyo ay maaragtay magaciiseeyaan inay joojiyaan lacagta ay siinayaan dadka proxy work ah oo la yiraahdo Hamas iyo Hezbollah iyo qolihii hore ay uga hadlaynay inay gacanka Hormuz furaan oo u noqdo meel nabadgelyo ah oo maaragtay cid walba u furan sidii awal u ahaan jiray lagu soo celiyo waaya Abbas Arachi haddii aynu eegno qoraalkan uu soo dhigay Hormuz uu kaga hadlayo iyo maanta oo ay u dabaaldegaysay Iran markaas Persian Gulf Day 400 sano guuradii ka soo wareegtay markay Boortaqiiska iska kiciyeen muxuu ugu soo lifaaqay Mareykanka iyo Pentagonka ujeedadiisu maxay daaran cabdixaafid waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan arrintan hadda ka hor baan ka dhawaajiyay maalin aan halkan kaga hadlaynay oo lahayn Boortaqiiska ayaa marqabsaday oo sida hadda ay samaynayaan Iiraaniyiintu tool buu dhigtay oo muddo 100 sano wax ku dhow ka qaadayay maaragtay ka qaadayay canshuur ama maxaa la yiraahdaa jasyo ama whatever wixii doona lagu sheegay ama baadka hala arrintaas marka waxay soo dhamaatay 1622 bay soo dhamaatay marka Abbas Arachi waxa moodaa arrinta inuu xasuusinayay Mareykanka inay dhamaatay yani waxyaalihii status quo-ga ahaayo waqtigaas Iiraaniyiintu wax xooga ma lahayn marka kulamay gorgortami karin waqtigaa waxay yiraahdeen meeshaan waa waterway yani waxay ka mid tahay international water oo kale oo maaragtay meelaha biyaha caalamiga ah oo kale cidna ma maamusho cidna maaragtay tool kama qaadi karo buudo oo ma dhigan karo cashuur kuma waajibin laakiin arrintaa inay meesha ka saareen oo sidii ay maaragtay Boortaqiiska uga qaadeen oo kale ay tahay oo maanta ayaa gacantooda soo gashay dib dambana aysan u noqon doonin meel adduunku u siman yaho qof walba wuxuu doono uu ka sameeyo wuxuu kaloo xasuusinayaa taariikhdu waxa la yiri moogtay waxay yiraahdaan qolyahan aan la joogno the history repeats itself taariikhdu waa isku soo noqnoqotaa maalinba maaragtay waxaad arkaysaa maalinta hore inay u eg tahay marka arrintaas waa xasuusinahay hal cumar waraysiga lala yeeshay ay bixisay cidda waraysiga ay siisay waayo fariintay diraysay maxay tahay hadalhaynta dhalisay dacaadow ilaa waxaa waraystay dhalinyaro ninka la yiraahdo Obama aan la shaqayn jiray waxaa ku jira laba qof oo
dadkii speech writerka u ahaan jiray asaga ka mida iyo kuwa kale aidkiisii ahaa broadcastinga iskale marka arrintan waxay kaga hadlaysaa Middle East-ga iyo waxyaalaha ka socda iyo proxy war-ka iyo ishardiga siyaasadeed oo u dhexeeya wadamada carabta laftigooda oo ay u kala dhawaanayaan reer galbeedku mid walba midka kale uu isaga dhigayo inuu uga laxaw badan yahay iyo arrintan Israa'iil oo markii Israa'iil dami dagaal samaysay oo ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga iyo xuquuqda bini'aadanka maadaama aan lagu ciqaabinin wadamada kale oo meesha ku yaalo sida Imaaraadka oo kalena in iyaguna ka sameynayaan dambiyo dagaal wadankan la yiraahdo Suudaan oo kale ay hubaynayaan ninkan la Axmed iyo kooxdiisa maaragtay burcadka oo dadka butcherka oo jarjaraya arrintaasay ka hadlaysaa marka waxay ku tusinaysaa يعني هذا difference u dhaxeeya Saudi Arabia iyo wadanka la Imaaraadka sida la socotay wuxuu ka baxay OPEC waxa madax u ahaan jiray waagii hore oo wadamada sameeyay wadamadan carabta u badnaayeen laakiin Sacuudiga ayaa maartay yiraahdaan waa aabaha OPEC marka arrintaas waxay ku tusinaysaa maadaama ay si kala fogaanayaan maanta waxaan akhriyay article ka hadlaya maxay uga baxeen iyo faa'iidada iyo khasaarada labadaba ugu jiro oo ah inay mashruuc saxiixeen sanad ka hor 2027 inay productionkooda gaarsiin doonaan 7 milyan oo barmiil maalintii laakiin loo ogol yahay inay 3 milyan iyo barmiil ay dhoofiyaan marka waa dareemi ka lacagta ay geliyeen iyo waxa uga soo noqon kara marka taas way rabaan inay Sacuudiga uga fogaadaan sidoo kale waxa la socotaa in OPEC Mareykanku uu necab yahay oo jeclayn oo ay ku dhacday 1973 marka sidaba cududu midowdo waxay noqotaa bargaining chip ama wax la yaab wax qofka lagu dhigi karo inuu tanaan haysto adigu maxaad haysataa 1973 Mareykanka dib loogu geystay 74 markii oo yar embargo ugu dhici jiray sidoo kale kambaniyada wax qodo oo inta ugu badan Mareykan baa iska leh oo ma jecla Mareykankuna in kambaniyadiisa ciriiri la geliyo ugu rabaa in kambaniyadu dadka soo dhacaan oo burcad laftigoodu noqdaan shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheeriyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda